Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum. Kulanti habboon daawadayaal lahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii 8 ee sheekadeennii Takoor. Waxaanaynu u galnay cutubkii 2 ee buugga. Qaybtan waxay ku bilaabmaysaa sidan: Cayuuni ceeshka way cuni weyday, isaga ayuu baymaanka ku haysaa, maskaxdu weedhihiisii ayay kolba mid soo goconaysaa. Cali Cabdilaahi ma yaqaan waxa inantiisa asiibay, ayada uunbuu wax hadlo ah leeyahay. Waa guri dambaystiisii. 3 wiil ayaa kor uga weyn. Cali Cabdilaahi baa dhalay. Cayuuni waa walaalo 3 wiil, wax kasta waa ka ilaaliyaan mowdka mooyaane. Isna hadday arkayaan inay ka ilaaliyaan ayay isku dayi lahaayeen, oo ma ka ilaalin karaan hadday arkayaan. Keligeed ayay fadhidaa. Hooyadeed Faadumo gacantii ay ka jabtay ayay u duugaysaa. Waataa duugiddii ku xanuujisay, ayana cod hoose oo xabeeb leh ayay ku tidhi, hooyo. Hooyadeed waa tanaxday ee tidhi, alla miyaan ku xanuujiyey hooyo? Ayana waxay ugu jawaabtay, maya hooyo, waa caadi. Waata hooyadeed hawsheedii iska wadatay, ayana xasuusta ayay dib u celisay. Axmed oo indhuhu muuqiisa u xiiseen ayay maanka ku xasilinaysaa. Waxay kolba xasuusanaysaa indhihiisii weynaa iyo jidhkiisii dhisnaa. Waataa dhoor la caddaysay, si kedisa ay u xasuusatay markii ay ku soo dhacday ee ay gacanta qabsatay. Waa kii aad u naxay, sidii uu u naxay markay xasuusatay ayay qutoshay. Aabbaheed Cali Cabdilaahi ayaa u soo galay. Inta ay naxday ayay maryaheedii uruursatay. Hooyadeedna waataa dhankii ay sariirta ka fadhiday mooyaane dhankii kale u bannaysay. Waa ka iska soo fadhiistay, ayana indhaha ayay iska shatay. Foodaddii waata baalka hore gacanta ku wadwada, sidii ruux biyo ku qubtay iska maroojinaya ayay u wadwadaa foodadda. Indhaha hoos ayay u rogtay. su'aalaha aabbaheed ayay ka sii cabsanaysaa. Isaguse weli hadal ma bilaabin. Wejigeedu aad u eegayaa, ayadana eegmadiisa xabad kaga xun. Aabbaheed naftiisuu dhaliilayaa. Markii inantiisa dhibtu gaadhaysay halkii uu ku maqnaa ayuu isweydiinayaa. Ilaa haddase garan maayo. Kii jiidhay ama dardaray ayuu uurka ka habaarayaa. Inuu nolol ku qabto ayuu doonayaa. Talow hadduu ku qabto siduu u geli lahaa. Waxuu hadalkiisa ku bilaabay, iska warran aabbo. Waan fiicanahay aabbo macaan, ayay ugu jawaabtay. Haddana waxuu ku yidhi, hadda maxaad dareemaysaa aabbo? Alxamdulilah aabbo, waan fiicanahay. Sidee waxnay kuu soo gaadheen? Maxaad waddada isaga eegi weyday markaad ka tallaabaysay? Aabbo si kadisa ayuunbuu ii jiray aniga oo waddada goynaya. Ma arkayn markaan doonaya inaan waddada ka tallaabo, oo si kadisa ayuu luuq uga soo booday. Markiibana wuu dardaray. Dhakhtarkana aniga oo aalla ayuunbaan ku war helay. Waaba fiican yahay hadduu cusbitalka ku geeyey, ha iskaba cararee. Aabbo isagu ima geyn cusbitalka. Oo hadda ayaa ku geeyey aabbo. Aniga waddada dhinaceeda bidix yaalla ayuu wiil baabuur wataa ee arkay. Isaga ayaa soo qaaday oo cusbitalka ay keenay. Maalinkii oo dhanna wuu ila joogay. Isagoo casho igu maqan ayaan idin soo wacay oo waan idin soo raacay, isaga oo aan iman. oo waa qolo ma aabbo. Aabbo xitaa magaciisii ma garanayaba. Hal mar ayuu ii soo galay, qof bila'aadana ayuu ekaa. waa sidaa. Haye iska naso oo iska seexo aabbo. Haye aabbo. Keligeed ayay qolkeedii ku hadhay. Aabbaheed waa uu ka baxay, hooyadeedna sidoo kale. Boqoradda guriga ayay u yaqaanaan. Way tahay oo iyada uunbay ilaaliyaan. Walaaladeedna sidoo kale. Waxaa hadda qolkeedii soo galay walaalkeed Kaysi. Waa nin xooggan oo aad u dheer. Isagu wixii xaggeeda soo eega laysma weydiiyo. Mooyisi uu u galo. Duqsi ma oggola inuu korkeeda taabto. Sidii aabbihii ayuu isweydiinayaa intii dhibtu gaadhaysay halkuu ku maqnaa. Naftiisu canaananayaa. Indhaheeda ma eegi karo. Iyaduna sidoo kale inuu maago ayay ka baqaysaa. Iska warran walaalo. Waan fiicanahay walaal. Xaalkaaga sidee tahay? Waan fiicanahay walaal. Alxamdulilah. Ma garanaysaa gaadhigii? Maya walaal ma garanayo. Wuu iga badbaaday. Waan ku qaban dheh. Haye walaalo iska seexo. Waa xilli dambe. Ayada waxaas oo dhani kuma socdaan. Waxay ka fekeraysaa Axmed, wiilkii maalmaha adag midigteeda ahaa. Wiilkii cidlada ka soo qaaday. Wiilkay warqadda u reebtay. Warqaddii ma helay, iyo hadduu helay muxuu kuu soo wici waayey ayay isleedahay. Dawankeedii ayay gacanta ku haysaa. Kolba way furaysaa oo eegaysaa nambaradii soo wacay. Nambarkiisii ayay ka dhex raadinaysaa. Miyay ka helaysaa illee mabuu soo wicine? Xasuusteedii ayay ku laabatay. Saacaddu way iskuraysaa. 3 habeennimo weeye. Ayadase uma muuqato. Axmed uunbay ka fekeraysaa. Waxay ku jiiftaa sariir weyn. Go' midabkiisu caddaan yahay ayaa ugu goglan. 2 barkinna way u saaran yihiin. Mid way barkan tahay,
midda kalena laabtay ku haysataa. kollay wuxuunbay ula niyootay. ayadaase garanaysa waxay ula niyootay. hadbadhan ayay isu rogaysaa. jirjirka kolka ay ku daasho dhabarkay u jiifsanaysaa. muddo marka ay u jiifto ayuu cabanayaa. waa taa beerka u jiifsatay. gogosheedii habaysnayd ayay horaaddo hab ku siisay. isbeddelkaa dhacay gogoshu way ku faraxday. baatigeediina mahadcelin ballaadhan ayuu u soo dirayaa. aad ayuu ugu faraxsan yahay dhulka habboon ee huga uu u yahay. dhabankeedii qurxoonaa ayay barkintii ku haysaa. waa taa dhoolla caddaysay. kollay wax uunbay xasuusatay. haa, axmed xishoodkiisii ayay xasuusatay. barkintu way ka helaysaa dhabankaa qurxoon ee kor saaran. shumis ayay ku boobtay. waa taa dhabankii ka qaaday. way fadhiisatay oo barkintii iska hurguftay. in shumiska barkinta ay dareentay ayaad mooddaa. mar kale ayay haddana dib ugu qabatay. barkintii kalena laabta ayay xoog u gelisay. in ay wax dareentay ayaad mooddaa. talow maxay dareentay? warba waa ka dambeeye daawade la soco qaybta inoo xigta. qaybteena intaynu ka lamid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.